bismillaahi raxmaani raxiim waa mar kale iyo barnaamijkii buug wadaag iyo buugga maanta martida inoo ah oo magaciisa la yidhaahdo The Horn of Africa State Formation and Decay. buugga waxaa qoray Christopher Clapham. guud ahaanna wuxuu ka shaqeynayaa qaran dhiska iyo qaran burburka ku yimaada wadamada gaar ahaan geeska Afrika. waxay isweydiin leh geeska Afrika maxaa keenay muhiimadda intan leeg ee uu kaga duwan yahay wadamada ku yaala qaaradda Afrika. qoraagu waxa uu sheegayaa saddex waxyaalood oo muhiim ay tahay in la ogaado oo gundheerida buuggan uu ka sheekeynaya ay tahay taariikhda geeska Afrika. waxa uu sheegayaa in taariikh gundheer uu leeyahay geeska Afrika maadaama ay ku yaalaan wadamo Afrika oo iyagu aan la guumaysan amaba guumaystihii la diray. qodobka labaad ee buuggan uu taariikhyahankani ama ninkan qoraagii ka waramaya waxa weeye in bulshada iyo qaab dhismeedka bulsheed ee geeska Afrika uu yahay mid kombalagasa ama kakan isla marhaantaasina ay jiraan colaado badan oo riiq yeeshay oo ka dhacay wadamkaas gobolkaas geeska Afrika. qoraagu buuggiisan oo soo baxay 2017 kana kooban 224 bog isla marhaantaasina u qaybsan 6 qaybood. waxa uu si weyn u qaada dhigayaa qaramada ku yaala geeska Afrika guud ahaan. waxaad moodaa in uu sheegayo in ay wadanka geeska Afrika ama gobolka geeska Afrika uu ka kooban yahay oo kaliya Eritrea, Djibouti, Ethiopia iyo waxa uu bixiyay Somali State waxa uu uga jeedaa guud ahaan goboladii Soomaalidu ay ka koobnayd oo dhan, Somaliland, Soomaaliya. guud ahaan buug waxa uu ka sheekeynayaa in wadamada geeska Afrika ay guumaysteen 3 guumayste oo kala ahaa Ingiriiska, Great Britain, Talyaaniga iyo Faransiiska. guud ahaan buuggu wuxuu qaadaa dhigayaa bal tirada dadka ku nool geeska Afrika oo uu sheegayo sida ay u kala duwan yihiin ama u kala badan yihiin tiro ahaan. waxa uu sheegayaa inuu ugu badan yahay wadanka Ethiopia oo xisaayaad ama studies la sameeyay sirfiyo la qaaday 2016 ay sheegayaan in wadankaasi uu kor u dhaafayo 100 milyan halka 5 milyan iyo siyaado uu yahay wadanka Eritrea. guud ahaan Somaliland iyo Soomaaliya oo la isku darayna uu sheegay inay yihiin 10 milyan iyo sayd halka 899 kun uu ku sheegay wadanka Djibouti. guud ahaan buuggu waxa uu ka warramayaa sida ay u kala duwan yihiin cimilo ahaan wadanka geeska Afrika isagoo sheegaya in wadanka Ethiopia uu yahay wadan isagu highland ah oo dhul sare ku yaala marka loo eego guud ahaan geeska Afrika. Ethiopia ayuu sheegayaa in ay kala duwan yihiin qowmiyadaha iyo bulshooyinka ku nooli. Oromada oo ugu badan buu sheegayaa. waxa uu sheegayaa oo kale in ay u kala qaybsan yihiin lowland ama dhul joogoodu hooseeyo iyo highland. waxa uu sheegayaa xadaaradda iyo ilbaxnimada dadyowgani inay kala duwan tahay, gaar ahaanna marka geeska Afrika laga sheekeynayo uu leeyahay dadyowga meelaha jooga sare ku nooli way ka ilbaxsan yihiin ama way ka yaqaanaan dawladnimada dadyowga iyagu aan xoolo dhaqatada u badan ee dhulka joogiisa hooseeya ku nool. waxa uu ka sheekeynayaa samaysankii iyo la dagaalankii xukuumadii dictatorada ahaa ee ka jiray wadankaasi Ethiopia isagoo sheegaya Menelik II in uu isla markiiba go'aansaday inuu ka mid noqdo dawladihii waaweynaa reer galbeedka ahaa ee qaybsanayay qaaradda Afrika. isla marhaantaasina isagu uu yiri aan dhariga gacanta idin la geliyo. isla marhaantaasna isagu qayb kamida Soomaalida isaga loo jaray oo markaasi uu gooni u qaatay. waxa uu sheegayaa qoraaga buugga oo uu ka warramaya in Ethiopia ay dhowr jeer isku dayeen in ay xukunno kala gedisan sida dagaaladii 1977 ama ridistii Haile Mariam oo kale iyo isla marhaantaasi wixii ka dambeeyay dhicitaankii dhargiga. waxa uu sheegayaa qoraagu in buugga uu ku xusaya in Allahumma salli ala Muhammad qolada la yiraahdo Ethiopia gaar ahaan jabhadahoodu ay ahaayeen qaar ka gedisan jabhadaha kale ee wadamada kale. waxa uu sheegayaa in TPLF markii ay xukunka gacanta ku dhigtay 1991 ay isla marhaantaasiba qof waliba qorigiisii dib u gaday oo uu siistay waxa uu ku raaco mesela nool ka dhigto oo uu ku raaco halkii uu ka yimi isagu markii hore ee uu ka soo raacay jabhadda. taasi waxay keentay in ay soo shaacbaxdo mahmaah Amxaariya oo agtooda caan ka ah oo ah qorraxda subaxii soo baxda waa cadceedayada. dawlad kasta oo wadanka iyaga maamushaana waa dawladdeeda.
taasi waxay muujinaysaa in ay guud ahaan yihiin qaar ka gedisan marka loo eego wadamada geeska Afrika ku nool sida Soomaaliya oo kale oo iyagoo uu sheegay jabhadihii galay in iyagoo geeloodii la jooga markii dambe la yiri xukunkii uu dhacay ay magaalooyinkii qoryihii la galeen waxa la sheegayaa in oo qoraaga buug ku xusaya si weyn u sheegaya in bililqa baahsan ay ka dhacday xamar bililqadaas hantidii taalay oo aad u qiimo badnayd waxa uu qoraagu sheegaya in markii dambe bililqadaasi ay gaadhay Kenya gaar ahaan Nairobi isla mar ahaantaasina Soomaali badan markii dambe waxay aamineenba in waxa Kenya iyo Nairobi lagu qurxiyay ay tahay hantidoodii laga soo dhacay xamar waxa uu ka sheekeynayaa wadanka Eritrea la yiraahdo isagoo sheegay inuu qabsaday xukunka ninka la yiraahdo Siyaas Afwerqi Siyaas Afwerqi wuxuu isaga laftiisa hogaaminayay dawlad guuna jabhad wadankiisa ka jirtay isla mar ahaantaasina xukunka la wareegtay dhicitaankii dhergiga 1991 waxa uu sheegay in Eritrea ay iyadu lafteedu macluul badan ku nooshahay isla mar ahaantaasina dadkaasi oo leh dekado aad u muhiim ah oo waaweyn ay iyadu tahli kari weyday in xiriir la samaysato wadanka Ethiopia waxa uu xusayaa qoraagu in dagaal xuduudeedkii u dhaxeeyay Ethiopia iyo Eritrea uu dhaxmaray isla mar ahaantaasina ay ku leedeen dad badan waxa uu ka sheekeynayaa Mele Zenawi inuu ahaa nin maskax badan isla mar ahaantaasina uu ahaa chief ideologist isla mar ahaantaasina hogaamiye TPLF waxa uu jeclaa Ethiopia sabab gaar ahaan in ay noqdaan meelo guud ahaan looga taliyo qaaradda Afrika isagoo xarun ay uga dhigay hay'ado caalami ah oo ay kamid yihiin qaar UN-ta isla mar ahaantaasina saldhig ay u noqotay ururka midowga Afrika ama African Union xarun ay u noqotay Addis Ababa iyada lafteedu waxa dhismaheedu uu lacag badan geliyay dadkii inta badan ka iimanayay wadanka dibadiisa ee lacagaha badan soo diranayay dadkaasi dhismayaal qurux badan ayaa Addis Ababa ka dhisteen waxa uu iimanaya waxa loo yaqaano Somali State isagu uma kala qaybinayo Somaliland iyo Soomaaliya guud ahaan waxaad moodaa shantiiba inuu isku qaadayo isagoo aan kala jarahayn waxaana uu leeyahay Baafin Plan ama qorshihii plan Baafin oo ahaa qorshe la doonayay in Soomaaliya mid laga wada dhigo guud ahaan goboladeedii kala tagsanaana la isu wada geeyo oo fashil markii dambe ku dambeeyay waxa ka sheekeynaya burburkii dhicitaankii dawladda Soomaaliya 1991 isla mar ahaantaasina jabhado ordaya ay magaalooyinkii waaweynaa iyo caasimadii gaar ahaan la wareegeen isla mar ahaantaasina ay tahli kari waayeen xukunkii soo celiyaan waxa uu xusayaa in dhicitaankii dawladda Soomaaliyeed kadib wax maamul u eeg oo la oran jiray buu Islamic Courts Union in la sameeyay Islamic Courts Union buu sheegay in saddex waxyaalood ka dambeeyeen saddexda waxyaalood ee uu sheegay samaysankooda ka dambeeyay waxay kamid ahayd dadkii oo ka daalay dagaalada iyo colaadaha ganacsatadii oo jeclaatay in xoolahoodii meel nabada ay helaan iyo isla mar ahaantaasina soo celintii wixii loo oran jiray social order ama habaysankii iyo farsamadii sidaasi u jirtay waxa uu sheegayaa in Somaliland iyadu ay ku guuleysatay inay nabad samayso gaar ahaan saddex waxyaalood ay keentay ta koobaad oo ah in ay ka gacan banaanayd gacan dibadeed talabaad oo ahayd ismaqalka iyo isu tanaasulka iyo ta saddexaad oo ahayd ganacsatadii oo dareentay baahida loo qabo nabada waxa uu ka sheekeynaya wadanka Djibouti in ay tahay wadan yar isla mar ahaantaasina dekad u ah 100 milyan ee Ethiopianka waxa uu sheegay Djibouti iyadoo inay survive garowdo ama jirto waxa iyadana saamaxay saddex waxyaalood koow iyadoo ah city state oo aan ahayn wadan ballaaran laakiin ah magaalo kaliya oo qarana isla mar ahaantaasina qoys kaliya oo ilaa maalintii xornimada ay qaateen la maanta maamulayay oo sheegeen qoys Ciise oo maamusan la yiraahdo sida buugga uu ku xusayo waxa uu sheegay oo kale Francisco oo damaanad qaaday ilaalinteeda iyo inuu iyada daryeelo guud ahaan geeska Afrika ayuu ka sheekeynaya in qarandhiskoodu ay u kala duwan yihiin wadamadu waxa uu sheegay oo kale marar qaar kood geeska Afrika in lagu taxo wadamo ay kamid yihiin Suudaan isticmaalka biyaha Niilka iyadoo loo aanaynayo iyo Kenya oo la leeyahay maadaama qayb kamid ah Soomaalidu ay degto iyadana geeska Afrika lagu daro guud ahaan intaas iyo in ka badanba waxa xusaya qoraaga buugga oo runtii si faahfaahsan u dhigaya buugga macluumaadkan iyo kuwa ka badaniba way ku jiraan waxaanu jecelnahay cidii danaynaysa inay buuggaasi akhrisato sida ay wax badan uga ogaato geeska Afrika inta buugga kan ku xiga aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa buug wadaag waa adduun wadaag hoyga agabka waxbarashada iyo buugaagta ee Hema Books waxaad ka heli kartaa agabka waxbarashada noocyadooda kala gedisan buugaagta dugsiyada barbaarinta hoose dhexe ilaa sare agabka shaybaariyada sayniska iyo guud ahaanba buugaagta akhriska guud oo ku qoran Soomaali Ingiriisi iyo Carabiga
soo buuqo Hema Books oo baahi tir maskaxdaada.